nin dhibkiisa nin kale dheeftiisa ayay noqotaa ama reer xamarka sidaa dhahaanba ninkoo shiixiis ninkoo shoobkiisa waay maanta Soomaaliya fursad dahabi ah ilbaabu ilaahay u furay ilaahay ilbaabu noo furay colaadan bariga dhexe ka soo cusboonaatay waliba gaar ahaan dhanka shidaalka Soomaaliya waxay noqotay meel indhaha lagu wada haayo gaar ahaan dhanka shidaalka Turkiga oo soo diray maraakiibtiisii ugu cusleed ee asagu u bahnaaba maraakiibta dagaal noocyada idin wado idinka yaabi doontaan maxaa kalifa marka intii anaga inta ku mashquulsaneen Iiraan gadaal soo turta ki kala soo turay Dubai qaraxday iyo Carabta waa lagu kala orday inta ku mashquulsaneen fursadaaba ka banaanaatay dhankan kale badda Soomaaliya iyo kheyraadka shidaalka Soomaaliya ku jiro waxyaabo fara badan oo cajiib ah ayaa soo kordhay taariikhdana ma ogtahay taariikhda way isqortaa taariikhda sideedaba way isqortaa ku 1973 maxaa yeelay sheekadan hadda taariikhdan hadda idin sheegayo maanta meesha aad taaganahay ay tusaale u tahay 1973 dagaal culus ah dhacay oo Carabtii Israa'iil dhex maray Carabtan hadda ma aha oo dagaalku ku jirto ma aha Carabti kale dhanka Mediterranean dagaalkaas waxa la dhigi jiray Yom Kippur 1973 waayay waxa dagaalamay Syria Masar Lebanon iyo Jordan oo hal dhinac ah waa dalal muslimiin oo Carab ah oo hal dhinac ah iyo ciidan hadda loo Israa'iil ayaa dagaalamay dagaalkaas 20 maalin uu qaatay waagaas Carabtii awood badneed waxay ahayd Masar Lebanon Syria iyo Jordan ciyaar ma ahayn kuwan kale hadda Sacuudiga iyo Bahrain iyo Qatar iyo Imaaraat Carab iyo Kuwait saxare ayaan saxaro Carabtii waagaas ku noolay Dubai-dan hadda u jeedaan 1973 ariya lagu raacay ari wadooyinka saxaro tiitina ka baxay qura marka waagaas Masar shidaalay soo saari jirtay Syria shidaalay soo saari jirtay military ahaan way dhisneed Lebanon sidoo kale Jordan sidoo kale markuu dagaalka qarxay oo ayaga Israa'iil ay isqabteen oo diyaarado lagu dagaalamay oo taangiyo lagu dagaalamay colaadii ka qarxday dhankaas awgeed adduunkii wuxuu u soo wareegay dhankan meeshan hadda aan maqashaanay marinka Hormuz loo yaqaan Sacuudiga shidaalkiisa markaas uu hawada galay waa loo qoday kambaniya ku soo hoobtay Mareykanka ku jira xitaa iyo Yurubiyaanka imaaday Dubai sidoo kale ayagana shidaalka loo qoday colaadii ka dhacday aagaas oo colaadii dhex martay oo 1973 ciidan Israa'iil iyo Masar iyo Jordan iyo Lebanon ayaa waxay dheef u noqotay Carabti kale dalkooda ay dhisteen shidaalkii ka dhisteen hal mar ay hawada galeen marinkan Hormuzka arkaysaan waagaas luuba noqday meel xasaasi ah iyo Carabtii shidaalka soo saareysay injineerada adduunka ugu fiicnaay oo dhulka kale jooga soo carareen aagaan ay imaadeen maanta tii aniga hortaagan ka waran oo biyo aan la marinin fursadii waagaas Carabta soo martay markii colaadda xagga ay ka qarxday inta ay dheef ka heleen tii aniga maanta hortaala maxaa yeelay shidaalkii Hormuz waa u dhamaatay shidaalkii Carabta Sacuudi Qatar Bahrain Imaaraat Carab inkaara ku habsatay soo kabasho 10 xitaa haduu caaw dagaalka dhamaado hadduu dagaal soo gabo ilaahay u kaso soo gabo ma ina dhacis ma u muuqatay 10 sano ku qaadan doontaa inay soo kabtaan dib u soo kabtaan taas ayaa waxay kaliftay adduunkii oo shidaalka aadka ugu baahan adduunkan dagaalka ku jirna ka hadlayna waa Shiine waa Japan waa Korea waa Hindi waa Azerbaijan waa kale waa Sri Lanka waa Heblo adduunkii dhan oo ka faa'iido jiray shidaalka meesha soo marayay xitaa Carabta lafta Sacuudiga maanta waxay taagan tahay hal soo dhoofisha Soomaaliya inaa lagu soo wada haya Soomaaliya aagan Baabul Mandab waxa ka hadlaynaa berbera iyo Boosaaso iyo aagaas colaad qayb ka yihiin ana hadda idin dhahay Soomaaliya dhinaca ee dagaalka ugu jirta aagaas la mari kara ma aha xuutiya fadhiyo balaaya ka socoto laakiin dhulkan koonfurta markaas hobi asaa u soo dhaaftid ilaa Kismaayo ka tagtid waa amni badda laga hadlayaa Turkiga marka warka idin siiyo Turkiga fursad tii u jeeda Soomaalideenan ma ogtahay ilaa aqliga noo soo celiyo wax baaba ayaan nahay waxaan u majeedo dagaalka xamaasad dagaalka dhees way Turkiga wuxuu soo diray maraakiibtan Goksu balaay ka dhacday u jeedaan wuxuu soo diray TGC Bayraktar la soo diray balaayo kale oo caan ah oo Turkiga laga yaqaano maraakiib asagu u baahnaa
amnigiis inuu ku sugto oo anaga noo soo diray maanta bartin iyo YZB iyo maraakiib kale oo fara badan kuwii hadda koor uu soo diray saddexda eed ah xasuusataan waaba la bedelay waxaa la leeyahay idig soo baxa caruuraatiin alaabtii waaweynkiia garoonka soo gashay 8 markab madaxaada uusan qaadi karin balaayo ka dhacday ah ayaa loo soo diray dhulka Soomaaliya shidaal qodistii Turkiga ayaa dardar ku socoto waqtiga ay qabsadeen waqti ka sii badan ayaa lagu soo saarayaa maxaa yeelay waa fursadii dabcan Turkiga ka faa'iideysan doono waa wada ognahay asaga ka taajirayo anaga Dubaydana ma aqaan saa u dhisan doono wallahi waxa aad u jeclaan lahaay hadda fursadan dabcan na hortaalo muddo 5 sano gudaheeda muqdisho waxay ogaan kartaa Dubai marka caday waxay ogaan kartaa Dubai war saas u bax maxaa la dhul xeebeedka Soomaaliya oo dhan iyo dhulka caasimadaha waaweyn Baydhabo hadhiin Kismaayo hadhiin Beledweyne hadhiin Boosaaso hadhiin Hargeysa hadhiin war dhulkeeni waxaad isku kandiraayo u dagaalamayno commentida qabiil iskugu heesano baahida waa mugta kala kici lahayn fursadda koor carabti ee ka faa'iideysteen ku yiri tii oo biyo aan la marinin ayaan hortaalo Turki uu u jeedaa isla markii Erdogan wuxuu taagan yahay waxa iga darnu taagan yahay dhulkaas ilaashana soo dirsaday Iran lagama ilaalinayo Iran dhulkan Soomaaliya weerara ma aysan dhihin wuxuu Turkiga u soo diray dardarta shidaal qodista ayaa bilaawanayso meesha lagu dagaalami doono adduunku dhan uu ku soo hooban doono hadda maantadan waxa rabaa ina maabka ila fiirsan Sacuudiga asaga wuxuu ku fiican yahay laba bado xuduud la leeyahay marinkan Hormuzna wuu maraa dabcan sida ujeedaan wuxuu kala maraa Suezkana wuu maraa isla marka shidaalkiisa wuxuu u soo bedelay dhankan iyo Suez u soo bedelay aagaas meel mashquul ah oo dagaalka saameyn uu ku leeyahay waa sababta xalay Xasan Sheekh iyo Djibouti iyo Ethiopia ee isku arkeen waa dhankan iyo Red Sea iyo dood ee ka socotay Xasan Sheekh waa ogyahay Turkigana waa ogyahay badan weyn ee furan ee Soomaaliya oo dhulka qeyraadka uu ka buuxo shidaalka uu ka buuxo in maanta ay tahay golden opportunity ama gold rush waxa afka qalaad lagu dhaho waaye walaalayaal fursadaas ayaan hortaal oo hadda koor carabti ay ka faa'iideysteen oo anagana maanta dabcan tabar ma heeno waa sax dad si qabiilaysan iska dulaysan iska dhinta iska baaba'anahay waa sax laakiin Turkigii ayaa meesha ku jiro fursadiisa ka dhax arkay madaxdii xogaa noo heshiin lahayd oo kasta nooga soo qaadi lahayd oo at least magaalooyinka iyo wadooyinka iyo iskoolada iyo iskoolo free ah iyo noo dhis lahayd ilaahay Xasan Sheekh Maxamuud ilaahay saas ha ka war dictator iska noqdo durabo war fadhi ilaa ka dhimata fadhi noo dhis leh magaalooyinka leh noo dhis highway noo dhis Dubai leh ka dhig aniga wax kale ma baro Xasan Sheekh sheegtay ilaahay cirfiid ha noo noqdo madaxweyne magaalooyinka leh marka caday oo Dubai ah Muqdisho oo Dubai ah Baraawe oo Dubai ah lay aragna bas iyo dhulka kale ee Soomaaliya marka intaas soo kortay arrin idin sheego Turkiga oo soo diray maraakiib aad iyo aad u culus iyo Soomaaliya oo noqotay carabti markii laga soo kala cararay meesha indhaha lagu wada haayo kambaniyada waaweynaayo dhan ee imaan doonaan